Expo-gan China and Arab Expo farxad weyn ay tahay markii ugu horeysay inaan ka soo qayb galo waxaa kaloo farxad weyn ah inaan Expo-gan aan ku leenahay pavilion oo matalayo magaca Soomaalida iyo shirkadaha Soomaalida taas oo soo bandhigayaan dhammaan waxyaabaha main source-ga oo waddanka uu leeyahay oo Nigeria resources ilaa fadligiis waxaa farxad kaloo weyn ah dhammaan sida aan gelinaysaa in aan ka faa'iidaysano fursadda qaaliga ah ee taalo waddanka China waa adduunka dadka labaad ee ugu badan China waa dadka ugu badan adduunka ee labaad sidaa awgeed waxaa fursad noo ah inaan ka faa'iidaysano wararkeena inaan ku soo bandhigno dabcan hadda in kooban aan soo bandhignay intii waxaan dareemaynaa inay aad ugu soo ugu reeqsan yihiin su'aalahan xad lahayn weydiinayaan waxayna weydiinayaan kaamilkii anisina weydiinayaan waxayna weydiinayaan maxaa la yidhaahdaa beeraheennii iyo soorsigooda waxay kalena weydiinayaan sintii liintii dhammaan barortigan markay arkaan waxay halkee ku maqnaadeen intee barortigan macnaha aan ka heli karnaa farxad weyn noo tahay sida hadda aad ka arki kartaan ay noogala soo qayb galayaan oo hadda aan tusin karno arki kartaan dhammaan waxay aad حسينايان حد إلى بركتكن ودكن صوتي كلي أنا حد من ما كان أنا في بلاد رمو أنا أعرف أنكم هتعلمنا سببنا شغلنا وأعرف هذا الجلسة شغل الجلسة أنا رجعنا ودكن ما تجودوا من أي كان سيدا سوكله إن شاء الله قد يندونان حلنا هاي ومحسن تاي باسطور تفضل هذا ما سنتم مرات هذا Soomaalida naga dambayso ganacsatada aan waxaan dhiirigelinaa inay sourcigooda ay soo bandhigaan inay waddanka GDP-giisa wuxuu ku xiran yahay waddanka waxa uu dhoofiyey anaga Soomaali markaan inta badan waxaan xoogga saarnaa inaan waddanka wax ka qaadno kaliya waddamada aan import kaliya aan xoogga saarno laakiin maanta waxaa farxad weyn ah bilow weyn noo ah inaan ku fikirno dhiirigelinna ganacsatada inay exportiga ay xoojiyaan marka farxad ay tahay in arkaan soo bandhigo inay wareysato Dr. Ikraan oo aad noogu dhiirigelisay antan inaan soo bandhigno fikirkeena iyo arahdayna aan kala kulan Expo-ga waa maas aad u faahsan tahay sharaxaadaada aad u qurux badan waana kaaga mahadcelinayaa inaa u sharaxday si qurux badan waxyaabaha muhiimka noogu ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Expo-gan maxaa ka faa'iiday haddii arrintaas aan ka jawaabo runtii wax badan aan ka faa'iiday experience badan waa arkay waxaan arkay fursado badan oo waddankan maadaama waddan macnaha qadiimi uu yahay xagga adduunkana horumar fiican ka sameeyey inaan ka faa'iidaysano teknolojiyadiisii aan ka faa'iidaysano oo waxyaabihii aan ka aragnay waddanka macnaha applicable ku ah inaan geyno isagan waxaan ka faa'iidnay ugu weyn sida hore u sheegayba inaan fursad ay ka leeyihiin productayda waddankan sourcigiisa inay fursad ay ka helayaan inaan waddankan aan soo bandhigno midda koowaad ugu weyn aan ka faa'iidnay midda kale markaan ku dabaqno shirkad ahaan iyo ganacsi ahaanna hadee waxaan ka faa'iidnay inaan macnaha options badan aan helno shirkadaha aan la shaqeynayo waddankan waa waddan region ah waa waddan hodan ku ah xagga industry khibrad iyo maxaa la yidhahdaa fursado oo qaali ah tiro badan inaan ka helno insha allah ummadda kalena waa u bandhigaynaa oo halkeena saaxiibadeena iyo ganacsadeena dadkan nala midka ayagana insha allah tacaala inay fursadan oo kale ay helaan hadday u baahdaan waa ka caawin doonaa waxa loo xaq dadka businessmanka iyo dadka ganacsatada ay ku iman karaan waddankan waa mahadsantahay waxaan weydiinayaa ay sharaxtaa shirkadiina maxay qabataa alxamdulillah shirkadeena waxaa la yidhahdaa magaceeda shirkadda daawada Abubakar Sadiq Pharmaceutical Company waxaa fayldigan caafimaadka ay ku jirtay muddo ka badan 27 sano waxaan aasaasnay 1998 waxaan ku aasaasnay baahi jirtay oo markaas waddanka ugu baahnaa xilli weliba adag oo in wax la keeno oo si sare loo keenay aad u adkeed ilaahay fadligiis juhdiga aan bixinay iyo teamka shirkadda Abubakar Sadiq effortiga ay bixin waxaa suurta gashay in waddanka wax badan ay ka qabtaan baahida caafimaadka annagoo aan sourciga ugu muhiimsan ayaan wax ka heli karno quality dhinaca walba annaga oo ka eegaynana alxamdulillah waa suurta gashay inaan wax ka soo gaarno maanta jayna waxaan joognaa in ayagana insha Allah tacaala aan development aan ka sii sameeyno businesskeena annagoo dabcan insha Allah tacaala focus ay noo tahay annaga waxaan markii la yiraahdo shirkadda saddex meelood ayaan xoog aan saarnaa qayb oo pharmaceutical-ka iyo qayb reagents-ka oo company sister oo aan leenahay Abla Medical Supply la yiraahdo waxaan kaloo aan leenahay company kale oo Samad la yiraahdo oo isaga daawo ka shaqeeyo oo qaybaha caafimaadka oo hospital supply-gooda aad uga shaqeeyo sida disposables-ka marka waxaas oo dhan waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaan ka qabtiri doono intii iyo ka sii badan maadaama maanta aan waddankii sourcigiisu waxa aan joogno maadaama dhalinyaro badan ay ku xiran tahay anigana uu hamigayga yahay inaan dhalinyaro badan dhiirigeliyo ma siin kartaa dhowr
nasiixo oo maxaa la ku saabsan faa'iidaysiga dalka Shiinaha. ما شاء الله سفي عن وسؤال آدم قيمة بدن ريالي حقيقة آدم فرحنا في عشان سنة ويسيد sababtoo ah waxa imtixaanka uu ka jira Soomaalida dhalinyaradeeda hadda wadanka marka imaan dhalinyarada marka fiirwa dadka ugu badan ee wadanka wax qabto ugu badan oo shaqeynaya ama creative ka innovation ka ah wax qabanayo waa dadka dhalinyarada halka dhalinyaradeena dhamaan ay ku fikiraanaan in wadanka ay ka doofaan oo wadamo kale ay macnaha aqligooda imtixaanadooda xoogooda ay siiyaan waan xaalad guud iska jirto laakiin alxamdulillah hadda waa soo koreynaa inta hore waxaan dhiirigelinayaa inay wadankan soo booqdaan fursadaha ay ku imaan karaan ay macnaha ay badan tahay kaliya ay u fikiraan inay wadankan wax ka qabsadaan waxaa kaloo la heli karaa talent tiro badan oo wadankan oo yaalo barnaamij ah haddii wadanka la geeyo runtii shaqo abuur fiican ee u naqanayso waxaan ku dhiirigelinaa inay innovation ku fikiraan inay hal abuurkooda ay ka shaqeysayaan kalsoonida ay wadankooda ay qabaan ayagoo macnaha sameynaya waxaa hadda kale ka mid ah dhalinyarada markay socdaal ay sameeyaan wadamo badan ay tagaan waxay soo arkayaan wax badan oo fursad u ah ay ka faa'iideysan karaan oo haddii wadanka la geeyana maanta qiimo weyn wadankan u ah ayagana qiimo weyn u ah taas sharafkooda ciisadeeda farsan baad wadanka ka tago meel kale u aado kaliya maxaa dhici karto in ceer loo qoro magacaas uu qaadanayo waa maxay ceer uu qaataa minis waa qof fakir taas waxaa daaweyn kara inuu hal abuur sameeyo wadankiisii ku noqdo markuu arko shaqooyin waxyaabahan fursadan iyo qiimaha leh wadankiisa geeyo sidaas uga faa'iideysto aad u maasantahay waa kaaga mahadcelinayaa inaad video ila duubtay waxaan ku leeyahay soo dhawaad mahadcelina fursadda ay siisay runtii waa fursad qaali ah shukran waxaan kaloo aan rabaa inaan halkaan ugu mahadceliyo si gaar ah Dr. Ikraan oo runtii nagu soo dhaweysay bandhigan wax badan oo naga maqnaana macnaha noo fayso wadankan halka caqabada oo markaa oo lahaan karo waxa kamid ah luqadii oo aad u adag iyadoo wax ku soo baratay waliba magaalada aan joogno halkan Nisha oo kamid ah Jana halka gabar Soomaali ah wax ka baratay inay tahay waxbarashadeedana ma sha Allah taala ay si wanaagsan ay ku dhameysay runtii waliba fayldiga ay dhameysay waa baahi aad Soomaalida u qabaan oo ah medical imaging oo ah radiology runtii waxaan leeyahay waa fursad weyn ay waqti badan ay bixisay waqtigeeda way ka faa'iiday dhalinyarada kalena waxaan u rajeynaa inay ku daydaan had gaar aan ugu celinaa waqti cadarkan markii waxay samaysay magaalo kale ay jirtay oo hadda meeshaan aan joogno Nisha magaalada ay saacado badan 3 saacadood iyo 4 saacadood diyaarad ay ka saareen waxayna u soo baxday wax kale maaha inay caawiso dadkeeda ilaan waxay dareemaysaa dadka markay timid habdhaqanka iyo ummadda markay aragtay ayaa macnaha waxaa ku sii weynaaday in isdhexgalka bulshada caawinta bulshada maxaa la yidhahdaa gaarideeda inay masaalixdeeda gaarkan ay ka leeyihiin runtii dadka sida ay Dr. Ikraan ay u fahamtay hadday dhalinyarada in badan u fahmi lahaayeen maanta meesha aan joogno meel ka sareysa aan joogi lahayn waxaan leeyahay kulli koo jeer waa mahadsan tahay Dr. Ikraan ku dhiirigelinaa dhammaan qofkii China dhanka leh ama baahideeda qabo in simbal sahal ula soo xiriiro Dr. Ikraan runtii aan kalsooni weyn aan qaaday markii aan la kulannay iyo habkay noo soo saacidaysay waxay kaa caawin kartaa sourcing la yiraahdo wadankan China haddii waxa uga baahatid waxaad uga helaysaa insha Allah si fudud oo transparent leh runtii markii aan in badan la sheekaystay iyo deegaanka iyo habka looga shaqeeyo runtii aad ay soo jiidatay waxaana macnaha aan bogaadinayaa siday ugu adeegso Soomaalida kaliya maahane waxay u adeegtaa ajaanib tiro badan u adeegtaa wadayana shaqada hadda dib ay u soo gashay markii ay dhamaysay waxbarashadii ay sourcing samaysay iyadana ilaahay fadhigiis meel fiican ay ka joogtaa waxaan leeyahay qof alla qofkii danaynayo baahi ah jirto inuu macnaha Jana Radical ama Quran ka danaynayo si transparent ah convince ah wala soo xiriir Dr. Ikraan gaar kaaga fogaadana hawsha ما شاء الله أمانتها وحدة بدن لآلة كان حد علينا والله وحواي أنا مش هنيماض أنا فرصة ويدي أهد مرة روح أفكر السنة إنا لكم مي كنعستدينا في حد نينا إنا أجازو ضل كان بحسو قرنين كان ضلك إسلامي وقفا إيدين كان مركا إذن صور نحكي لي وحياو بدن مجيجاجي جري محلا إيجا عدادي سيدو كاليتو وحا أجازو قيمها ألين هاي سومالي أهان مركا هذا أوفا سنتين إنا كنت هذا أوفا